markii xataa aan ka soo baxay xabsigii xor noqday in deefarta lagu fiiqo leeyahay ninka waa ka argagixisay loo xiray waa kan qaar laga carraa intii xataa aan xabsiga ku jiray ama aan soo baxay dad si ii aaminsanaa inay si kale iga aaminaan haddii aad awooddo inaad dadkaas dacweyso dacweyn lahayd wixii lagu soo waxaan jirin yihiin barnaamijka qaybka ah iyo wali social media ya dhalinyarada ku shaqaysanaysa markaas oo adeegsanaysa oo aniga waxaan oran karaa runtii waxay ka ahaayeen member la taaban karo bay ka ahaayeen naxrida dib u hesho dadka media maanta warbaahinta madaxda ka intooda badan waa dad tayadooda aqooneed ay sahay ahayn sarreeya waxa u sabab meel kale aad u garawaa bariska kala galay soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada hayaan podcast todobaadkan waxa barnaamijka noogu martiya ustaad Cabdilqaadir Dheere oo abrasare oo wax ka dhiga iskuulka Gambool ustaadku 25 sano ayuu macallin yahay isla markaasina magaalada Garowe ayuu 25 sano uu baraka ahaa ustaadkan soo dhaweynaya ustaadoo soo dhaweynaya hayaan podcast ku soo dhawow barnaamijka aan rabno inaan wada falanqeyno ama ka hadalno waa saameynta wararka aan la hubin ay ku yeeshaan sumcadda qofka ustaadka waxa jirtay barnaamij lagu eedeeyay isla markaasina uu jeel u galay kaas ayaan ka wada sheekaysan doonaa ustaad soo dhawow maxay saameyntii ugu weyneed ee kugu yeeshay warkii laga faafiyay waa dhawahay sawdo adiyo hayaan meediba aad baad mahadsantihiin marka koobaad soo sheegtay magacaygu Cabdilqaadir Cabdisalaan Siyaad Cabdilqaadir Dheere macallin ka tirsan macallimiinta reer Garowe been abuuradka waxa la yiraahdo oo ku saabsan barnaamijkan maanta in qof lagu been abuurto horta been abuurad xagga carabiga waxa lagu yiraahdaa al-iftiraac ama al-kadhib sharciyan been abuurad in qof been abuurto waa xaraam shay muharram oo diinta islaamku banaanay inta saameynta la gaarin in la sameeyo ficilka lagu dhaqaaqa muharrama diinta oo qay quraanka ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين حتى كفر إنه جالس سيء أي على الشيء والمذبح وحي هذا قاركود متشرو شيء كالصامين بدن حق الدم بأهان وكوي من علو بين أبوت بني آدم بين أبوت حكم كيسونا وأساس ومحرم وشيء حرام حتى وحالي هذا isku dirka waka saameyn baday akoomi sababta waxa dareemaysaa qof bari waxba dambi gelin waxba lahayn muslima oo meel iska fadhiya laga yaaba been abuurad qof ka soo fulay hal qof ka soo fulay qof oo media joogo ama fardiha ah meel iska maray masaajid ka hadlo ama wax kale ka hadlo in ama lagu qaarijiyo lagu dilo ama muddo dheer wax xabsi u galo ama dalka uga cararo soo doonaba ha marka been abuuradka horta xukmiyan waa saas tan kale saameyntiisa uu leeyahay iyo aniga shakhsiyan ugu lahaa aniga wuxuu ugu lahaa saameyn qof bani aadana lagu yeesho tii ugu xumay sababtoo ah anigu dee muwaadin baan ka dalkiisa ka jooga wadankan meel looga bixin ilaa ayuu markaan dhashay waxaan ahaa qof wax ku bartay dalka gudihiisa waxna ka baraha oo macallin ku weynaaday oo anoo yar oo 20 sano aan gaarin baan waxaan bilaabay inaan macallin noqdo halkan ka noqdo kulna waan ahay meesha jooga marka in xog nooc wixii aniga iga raacay de waxa aniga soo maray wixii ugu xumaabay ahaayeen sababta waligaan waxari ma gelin marka ka hor marka waxay keentay saameynta anigu yeeshay ugu weynaa horta inaan 18 sano xorriyad 18 habeen bil 10 cishla inaan xorriyadii waayo waxa intaas oo dhan iga darnaa markii xataa aan ka soo baxay xabsigii xor noqday in deefarta lagu fiiqo leeyahay ninka waa ka argagixisay loo xiray waa kan qaar laga carraa intii xataa aan xabsiga ku jiray ama aan soo baxay ama wax dad si ii aaminsanaa inay si kale iga aaminaan oo qaar aaminaan inaan badeed waligood ninka la socon jiro saaxiibka oo shaal lacab jiray meel kasta la mari jiray inuu badeeyo system kale ka tirsanaa oo qoom kale u ahaa iyadoo waxa ka jiray waxaas marka saameynta kale oo ka dhici karta waxa karta waaridkii waa yeelay in uu isku buuq ku dhacay oo maaragtay qaarku ay ku sigteen ba in ay waashaan waxa kale oo kamid ah inuu bahwadaagta ahayn oo aanu saaxiibada ahayn oo aanu culimada wada ahayn oo aanu waxbarayaasha wada ahayn macallimiinta wada ahayn in ayagiina mudadaas aan waan xirnaa chief ka tagay qaarkood dadkii qof ka shakeeyay marka saameynta aniga ugu yeeshay bidabdi horta intaas ay weyn wala alxamdulillah waa ka soo qabtay oo waxda aniga hadda haya ama uu hadda culays oo dambe ugu reebay ma jirto
marka de shakhsiyan saameynta ugu weyn aan ugu yeeshay waa taas sidiisana dhaqanka noocaasu waa dhaqan keeni kara in la isku qarni guuro amaasanta haddii aad awooddo inaad dadkaas dacweyso ku geystay dhibaatada ma dacweyn lahayd wallahi horta dee anigu markii aan meesha ka soo baxayba iska cafiyey dadka ayaa qur-aanka alabkay walkaadimiina alqayda walcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin marka nidaamkan asal ahaan systemkan been abuurka waxa la isku dacweeyey waaye waxa la isku maxkamadeeyo wadada isku dhaca waa ku sheegay laakiin anigu cidna horena uma qabsan haatan dee biladhan baa ka soo wareegayo u socota systemkan maahi inaan xataa ka sheekeeyo ama soo qaada xataa ma qorshaysnayn marka la yidhaahdo been abuur waa wax qofku uusan ahayn oo lagu shaabadeeyey ama laga faafiyey sumcadda qofku bulshada ku dhex lahay ma ku waayi karaa waa labo wuxuu hadduu been abuurad yahay horta marka u horeysa fakta horeba waa ku dilaya wade waxaa waa madfac moogta wade wanaa kuu sheego waxaan ku yiri waa laga yaabaa qofka inuu meel xun u gaarsiiyo waaba laisku dilaaba qof baa been abuurad saabsan kara ayan wuxuu doonaa ahaado oo laga yaabaa markii qofka la dilay kadib in qofkaasu bari yahay in la ogaado ayaan daawanaya maandhood barnaamij saas oo kaleeta oo nin maraykan iyo inuu ama qaranaya kole wadamadaas buha gaalada nin maxkamadu ku xukuntay xabsu daa'im waa 45 sano kadib la ogaaday wixii lagu xukumay inaysan waxba ka jirin oo been ahaayeen koonta dhibkaas u leeyahay bulshadaas u leeyahay dadka marka inta badan waxa kan abuuraha horta sidiisa waxa la yiraahdaa al-kadhib al-mukhtalaq baa waa wax la sameeyo qofka sameeyo dantu doonaa kala haado dadka marka waxa sameeya oo abuura oo bumbuniya oo wadwada saameynta ugu badan aakhriya ku soo noqota markii wixii la ogaaday haddii aan jawaabta qaybteeda kala galo qofku hadba siduu ula tacaamulo bay noqonaysaa qof baa laga yaabaa been abuuradkaasu marka hore haba saameeyo laakiin ugu dambeyn in dee markii caddaato waxaasan is jirin uu maaragtay ka gelgisho uusan isdareensiin haddana waa sidii nabarku kuugu dhaco oo aad u aragtay wey hawshani sidee ku bilaabatay sidee ku bilaabatay iyo waqtigeeday lahayd anigu dee qof caadi ah iska shaqaysta tani iska shaqaysta maalin baa inta la igu yimid goobtii shaqada waxaa la yidhi waa xiranta kadibna si kastaba ha martay meesha dunta martay xabsi baan galay ugu dambayna aakhir ilaahay waa iga soo daayay bijuhdin iyo dadaal dheer oo dad bixiyeen kadib oo maaragtay culimo iyo dad kasta iyo dowladda xataa qaybo ka tirsan ay ku jiraan la isugu tegay ilaahay waa iga soo daayay say ku bilaabatay say ku dhamaatay dee waa si dheero haatan si wax laga sheekeyn karo intooda badan ma aha runtii waaba kala iloobayba laakiin baadi daawadeed waa la hel wixii dhammaaday ayaa asal ah oo maaragtay guul laga gaaray wax jirana uusan ahayn labadaas ayaa muhiimadu ah koobaad ay tahay marka waa sidaas inta badan dadka sunuhu ka muuqdo way u fududahay in lagu shaabadeeyo inay argixisada xidhiir la leeyihiin ama lagu sheego maxay arrintaasi ay u fududahay in ay culimada kaliya tahay ugu dhigto waxaa keeni kara asbaqiyad wax leeyahay jirta wax waa hore dhacay oo ah dhulkeena Soomaali haddaan nahay waa saan ku sheegaya qofku inuu wax markaba la boodo ayaa badan marka waxa kan waa dhaqan ka yimid sideedaba asal ahaan reer galbeedka iyo dadkaas gaalada iyo Mareykan iyo waxa ka yimid ilaa qof halka maraya waa qofkaas waa argagixiso mana bilaaban haddeer qofka ku faaruq leeshnay maxad argagixiso ku sheegay sallallahu alayhi wasallam soo dhalinyarada 40 jiro iyo dhalinyaro yar la socotay dheer waan la soo qabtaa waan la xiraa waan la dilaa waa argagixiso quraanku rasuulku inuu sheegay oo macna in nabiga isku daynay dilaan ama xiraan ama masaafriyaan iyagoo ku adeynayay inuu yahay shakhsi la yimid wax aan horey loo aqoon marka dadka dhalinyarada sunnada ka muuqday waxa la yiraahdo inkastoo hadda badnayn oo wax jira ba asaas la oranay wax markuu ay la oranayo waxa keenaya asal ahaan fikradan waa fikrad meel kale soo guuriyay ma fikrad Soomaali ka dhalatay marka waa dhaqan qof meel ka yimid oo dadku la boodiyay wax la boodiyo qof dhalinyara halkaas ka maraya in la garbaad leedahay cimaamad baa wadataa asxaab gabadha xijaab bay qabtaa waa argagixiso waa kan dalka dawladda ka dilin jirtay waaga hore militariga ayaana baqaayaadkeeda markii sii dhacaysay ayaa laga wariyaa oo la sheegaa inay dadkii marka dhalinyarada ahaa saxaabada ahaa diinta iyo maarta ku shuqula maadaama dawladdu ay ahayd dawlad diin aan shuqul ku lahayn inay iyadu xariga iyo halka ka bilowday marka waa fikri qadiim runtii haatan waa caqiibo dabar goob wallahi alxamd teknolojiyadii markasta ay casri noqoto
faa'iidooyinkeeda dhibaatooyinkeeda way la soo koraysaa baraha bulshadu qayb ma ka yahay wararka been abuurka in lagu boqolkiiba warbaahinta ama waxa loo yaqaano media horta waxa leeyahay waa silax duuxadeed waa mid laba afi hadba dhanka wuxuu u goosato weey dhanka khayrkana guul weyn bay ka gaari karaan dhanka sharkana guul darey ka keeni karaan waana waxa ugu badan maanta media ee xumaanta faafiyo soo doona u faafiyo been abuurka liyo oran mayno ayinka nooc doona ha ahaado waxa ugu badan ee xumaanta faafiyo ee maanta Soomaali ka deglaada waa warbaahin marka warbaahintu hadii ay dhanka fiican u adeegsataan waa jiraan dad warbaahin fiican oo wanaagsan waa jiraan Soomaaliduna sideeda waayaan daba waxay xiisaysaa waxa loo yaqaan in bala la sheego oo media bala sheego waxaad arkaysaa maanta oo hadii telefoonkaas uu quraan ka baxayo ama maxay ka jiraan waad maxaad rajada ka jiro inna saa u habsaay ma sidii laakiin laba reer ba istishay laba qayb isku dhacday bala kala xaq dhacday hebel baas waxaan jirin oo been abuur hadii la qoro waxa arkaysaa daawashadiisu caadi ma oo badantay haday tahay YouTube haday tahay Facebook haday tahay TikTok haday tahay wax kasto media caadiga Soomaalida asbaqiyad iyo qadiim u lahaydo waxaan xasuustaa BBC da waagii dagaalada ahliga Sacuudiga sagaashameeyadii oo la yiraahdo BBC ma tahay sheegtay oo la xama sheegay وهذا معناها ديك داتي عد دل شيء لكن هذه اللي ما أنت ريال بس كفر حشي ورح يسأله الشيء تمقص مركا إن شركة بومبورنا نوفو حصل عليها دائرة تيرنا وحفظوا دني معرتي دنك حنك في الشارع دنك لو والله هاي وعريقة مركا هذا حبسة قاعد يعني أن أنت وقعت قيبت اللي بحالي وحي اللي يوصل وحي تريه ورما أنت قيب قاعد iyo social media yaraada ku shaqaysanaysa markaas oo adeegsanaysa oo aniga waxaan oran karaa runtii waxay ka ahaayeen member la taaban karo bay ka ahaayeen oo laga yaabo in dad badan oo wax kala aaminsanaa iyagu ka dhaadhiciyeen inay waxa jirin waan arkay mararka qaar markaas soo baxay dad doodaya oo qaar kood waxba isla haray oo arinta qadiida ka doodaya arin u saabsan marka warbaahintu waa number 1 sidii media maanta adduunka saga haysto sagaal waana saahad buu bogtay yaabo marka la yiraahdo media waxba lagu faafiyaa ama waxba lagu qoraa kaliya warbaahin kaliya ma adeegsato mudooyinka dambe waxa soo badanaya maadaama qof walba platform leeyahay gooni oo telefonkii iyo khadka wax walba ay fududaadeen in cid kasta ay fikradeeda halkaas ku soo bandhigto bulshadu laakiin inta badan waxay aaminsan yihiin in warbaahin un bay u qaataan dadka faafiya wararkaasi sidee lagu kala garan karaa bay kula taadiga war aan la hubin ama saxnaashiyaha warka sida lagu ogaan wallahi horta dadku waa wacyi qabaan waa baraarugsi qofta la soo dhow oo qof dhalinyaro ah oo meel wixiisa ku shuuqsada iyo warbaahin magaca maamuus leh way kala yaqaanaan waa laga yaabaa dhalinyaradaas iyagu waxooda iPhone-kooda telefoon-kooda wato inta meelaas waxa iska dhigaa inaan cidisa u xiisay laakiin markii warbaahintu magac leedahay oo media tahay oo magac xambaarsan tahay ikan ashqaas hada waxa jirta iyagu media salaam qof baa ku jira ariga Facebook ay ku jira qofka asaga media socda xafiiska ama male oo kale iyo ma systemka kale ma laho media magac asaga selfigiisu wata falkaas igu jiraan xogtay sheegayeen waa xog lagu kalsoonaa karo hebel baa sheegay baa leeyahay hebel baa sheegay ma dhalinyaro hadda waqooyigaas aad ugu jira halkan oo aan la socdo hadduu sheego warkiis war lagu kalsoonaa karo وانا فيسبوك يساوي ميديا ميل فدي حفيز ونسلاين بلغيها وحيسا وطو مركا waxa muctabarka muctamadka la taaban karo sharci qeyr lagu salayn karo runtii been loo warkiisa la qaban karo waa media shakhsi dhalinyaro halka wixiisa iska wato deeano kala halkaas iska qaadane waxba laga qoro marka waa asaas as media haduu hagaagsan yahay dad dadkan waa jiraano ay soo kala soocin media iyo qofkan wixiisa wato ay soo kala media hayst media shay iska waranay wixii la soo sheegay dad noocaas waa jiraan marka inta fi'adeenu ka duuleynaa waa dadka wax kala garanaya meeshaan ka duuleynaa ma aha cid kasta warkeeda qaadanaya marka inta wax kala garanaysa wax yaqaana waa la saxaa dadka maxaad fariina u diri lahayd dadka wararka beenta faafiya ama qaybta ka waxaan sumcadiisa lagu ciyaaro ama waxaan u diri lahaa number 1 qof bani aadana oo aqli oo muslima oo maamuus waxa loo sheegay number 1 waa ilaahay ka baqo ilaahay abuurta ka baqo ilaahay abuurta ka baqo marka waxaan oran lahaa ilaahay ka baqo ثانيا ogaada waxa aad ku hadlaysaan waa leeb atuurteen waa sahmi
xabad waa bambo wixii ku gubta oo wax ku gaaraan ama ku dhaawacma ama xorriyadooda ku waaya ama waxa kale naftooda ku waaya amaam Allah wa amaam taariikh idinka la weydiinay ilaahay hortiisa idinka la weydiinay taariikhdana idinka idin raacaysa waa aragteen hadeer waxyaalaha media dib u soo cusbanaysay waxa kamid ah dilkii boqor Faysal Saudi Arabia dilkii Cabdirashiid Al-Sharmaaka waa goorma 60 sano 50 sano ka hor waa dhacay dad dib baa loo soo cusbanaysay dad dilal ka horeeyay ummado in la soo qabsaa dhici karta 50 sano 40 sano aasan la soo qabsaa dhici karta oo maartay waxa aad u aqortay oo sabab u ahayd waaga jiray mudfuunahay oo asna ay maartay ay dib warbaahinta u samayso marka adiga intaad is leedahay wixii la oran jiray maxay oran jiray qoliyaha ka social media fayus miya mise fayus falow ma qawaay inta waxa ku raad is leedahay ummad ha isku rug ilaahna uga baq waxa kale oo aan u diri lahaa wax kasta waxa leeyahay nabi aadan wiilashiisa isdilay ibn aadan haabid iyo qaabib baa la yiraahdaa midkii wax dilay laba walaalaabi ahaayeen mid baa mid dilay awal qofkii hore qof dilay buu ahaa dilka jideeyay waxa leeyahay qof kasta oo la dilo muslim iyo gaal qayb ku leeyahay muslim iyo gaal qof kasta oo la dilo waa goorma aadam xilligiisa weyn nabi alayhi salaam xagee marayna boqolaalkuma saaqa maraya soma qayb ku yahay hatta kiflu minha qismi kamidu buu qof kasta adduunka lagu khaarijiyay muslim iyo gaal waxa qofkii ugu horeeyay buu ku leeyahay marka haddaad xumaanta haddaad adigu aad faafisay dad isugu dhacaan ama aliftay adigu dad isugu dhacaan ama dad isku laayaan ama ummad wax kala gaaraan dee qaybad ku leedahay marka ilaahay ka baq alla uga cabso ummadaada intaad shar sheegayso waxyaalo badan oo waxaa jira khayr hadda nin waxaa jira maxaa xasan dhalo oo aan jeclahay runtii media ka shaqaysa warbaahinta ka shaqeeya weeyaan oo beejilho aan aad u jeclahay baa jira waxyaalahan ku jeclahay waxaa kamid ah wuxuu sheegaa ummad u baahan tahay barwaaqo dalxiis safar tacliim horumar wanaag waxa buu ka hadla meesha laga yaabo wiil yar oo waxbarasho ka dhacay oo duduraan dugsi sare dhigan inuu saaka dhigay wariye caalami halkan oo jirta waan rabaa inaan maanta meesha u fadhiisto dadka media maanta warbaahinta madaxda ka intooda badan waa dad tayadooda aqooneed ay ahayn sarreynha qof waxa u sababa meel kale uu aad u garan waay bariska kala galay waa hore qoliyaha macallimiinta waxa lagu yeerin jiray war waa dhigi karaa idi jeestada Soomaaliya cawad hore waa dhigi karaa idi waxa ka birisay carruurta ka bishay laakiin hadda media wuxuu noqday meel laga birisay dakaat adduunka meediyaasha adduunka jira warbaahinta adduunka jira dimanta ka tira professor raaho oo maarta hay oo aad baasha ku soo aanbaxay ayaa waxa kale haysta halkaan wiil yar adigu ashala taqaanay oo ataydiisa karanayso macallin oo haydo laga yaab aniga hadda kula hadlay macallin oo waa ataydiisa karanay wuxuu farto qora aqaanay waa intaasna macallin oo ahaa laga yaab buugiisa markaas saxay in biga raaci jiray leeris u saxayo waxa la oranayaa wariye hebel war xaqay baasha soo la bartona way joogaan dad ugu cadaayo oo saxafiyiin oo meelada ka soo shaqeeyo deynayso kulliyada Fran oo saxaafada tabar loo furo oo hatta waxa ka faafreeb ugu sameeyo oo way wacan tahay waxa arkaysa nin baa wuxuu ka soo duubaya waraysi nin mas'uul oo ummadu toortay oo darajo sare jooga ama heer gobol ama heer dawlad dhexe ka soo duubaya aybu ka soo duubaya yucaaya qof walba sidii amoriyana waas inka taa waxa u sabaynaysaa inay hoosay xumada wariyaha adiga xataa isaga iska daa qofkaan ay inta qofka caaya u soo duubtay adiga xataa dib ku tahay waxa tuubayso حتى ورياش هذا أدونك جزيرة يكون تحنتها أو خلته اللي جيستان وربعين عالمية حتى صورة غير مسي داية ما لها ضغط خدعة صورة غير عليه المشاهدين تقلبت ضاوني قلب هذا الرطوع لا ضاوضوا ما أنا قبيت شيء أخلاقيا ما لا بقول إنما بيجي سرية من مسؤوله والسيرة أم كسر ريبة أم رئيس وزراء عاية ولا بقول عاية عايتهم وقعهم ننكلوا مسؤوله أما تدرون بقف شعب الكوارث بترو أستاذ سؤال هذا كنا قضي واحد دد كميديا هايستاتيو دد بيو وهوسيسا موضعها واحد ردد بدن وحنا اللي ورباهين تمراح لقي ساس لقى من سنة إني كسوق دكتور دد بدن أقوي هنينا أو ماركتي با إمين كتشوجا ورباهين تا كوا هذا حبرشة دي كشري كوا دمي أو ماركتي إلا marka taas waxaan maleynaa waa eedaha ugu badan ee warbaahinta loo soo jeediyay bulshada aaminsan baa u maleynaa horta dadka laftiinu markii أنا هذا معناه هذا معلم بانا
halkaas iskuulaan ka shaqeeyaado dugsi sare ah marba waxaa ku imaanaya oday qaar sita uu ku leeyahay maxaad carruurta lacagta maxaa saas noota waxaan jirinba marka doorta idinka laftiinu mid saxan iyo haddaad kuwa tayo fiican leeda ku jiraan iyo haddaad kuwa tayo sare ku jiraan haddaad kuwa leeda ku jiraanba horta qaar badan wada ku dhacaysaa waa laidin maagaya waa laidin weeraraya sababtoo nin durbaantu ta ilaaq dulbay idinka waxaa tirahdaa annaga warbaahin ka shaqeynayna marka horta waa lasoo weeraraya dulqaata halkana waa jirtaa oo sacuudiyan la iska indha tiri karay xashwi badan baa idinka buuxa wari maanta warbaahinta dadka ku jira ma wada fiiyo baa damba waa sheegay waa dad badan oo aqoon leh wax jireen waanaaba kuu sheegay kuwaan beejkooda ka caajisan baa jira iyagoo laga yaabo inaysan xafiis ba lahayn garbarreeta yihiin boqolkiiba boqol aan la socdo oo aan waxay iyagu sheegaan aan layga dhaadhicin karin waa been ma garata laakiin maca daalika maxaa jira waa liitana nin baa wuxuu qorayaa war degdega war degdega buu qoraya kaas war degdega halkaas soo waa ku faraysa maba jiraba wixii wax jiraba maaha maanta xagga badan ka dhacay islee hebel kabaha la dulmaray fiirinaysa maba jira wax jiraba mal macna maxaa faa'iida ku jira waa media dhan hebel media ugu qoran meesha marka way dad badan noocaas bay ku jiraan taa bedelkeedna haddee dadku ma wada xumaa oo dee adduunka dhanba wariyaal baa gacanta ku haya daliya dibadba soo maa waa runoo bulshadu inta badan waxaa la dhahaa intay waxay arkaan bay qiimeeyaan saxiix warar badan oo way jiraan saasoo kale inta deg deg loo soo qoraayo dadka inta badan waxaan dhihi karnaa waa views baa lagu raadiyaa laakiin haddana saasay tahay wax badan oo bulshada nacfi u lena miidiyaha waa lagu soo gudbiyaayo qeyb buu ka yahay bulshada baraarujinteeda idinka laakiin inaad waxaa ka leeyahdo laftigiinu warbaahinta laftigeedu ama miidiya laftigu idinkii aan ku idin dhehine warbaahinta guud iyadu lafteedu inay ku shabay qabato tiraan waxa noocaas aniga ma betelaa dadkan saas anigu ma nihin wax walba moogta kulama habba wadaba dusha laga saaro la rara iyaga oo leeyahay warbaahinta saatiri kuwaasaa yiri kuwaasaa idinka laftigu samaysaan dad aan idinka kamid ahay oo mafsuulina ka oo idinka go'an oo aan idin metelin si dadka looga barto oo si dadka loo barto soo ma ahayn idinku wixii dhan moogtahay markii xataa eedda dusha laga saaro waxaas warbaahinta qaribta oo qaadanaysaan hayaba iska leedin wallahi aamusaysaa ilaa waxa la yiraahdaa as-sukuut huwa rida waxaad ka aamusto shay raallinaad ka tahay buu safaynaya waa ku safaysan tahay adigu tilmaamaya marka idinka laftiinu waxaa faafreebana ku sameeyay inta teed jidka khaldan haysana waa ama mad iska horkeenaysa ama macnaha wadada khaldan haysana dee weyn laga yaqaana warbaahintu banaan iska dhigtaa tirada waxaan anagu shuqul kuma lihi inta badan anagu waxaan dhahnaa dadka bulshada kale warbaahinta iyo dadka social media wax ku qorqora malama kala yaqaanaan wixii wax qora wuxuu yaqaanaan wariye anagu saasaan dhahnaa waa sidaas oo sida waxaad mar haddaan adigina iska qabanayn qofkan banaanka jooga shacabkaana uusan wacyigiisu gaarsiisnayn aqoonba u kala lahayn wariye iyo qayr wariye te mar waa iska noqonaysaa marka in saas leedin arko saas la yiraahdo maxaa kula talin lahayd dadka faafiya wararka aan la hubin sidoo kalena waxyeeleeya sumcadda dadka waxaan kula talin lahaa horena u sheeg ilaahay ka baq allihii ku abuurtay ka baq ogowna inaad ilaahay hortaagan tahay waxaad ogaataa waxa kale aad ku hadlayso beej buu kuu galeeyay maalin baana jirta waxbaad kale kale qofka bini aadanka cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa inaad meel ka dhac ku samayso bahdil ku samayso ayanka noocu doona ha ahaadee waa masalo xisaabteeda adduuniya aakhiraba ku darso marka qorshaha iyo waxaan wax meel ku yaalay qodobka ku xiga waxa nabiga calaysalaatu wasalaam nin baa wuxuu baa hadlo wuxuu saxaabada la hadlo wuxuu xan baa la weydiiyay xanta qiiba markaasuu dikruka akhaaka bimayaka waa walaalka oo aad ku sheegto wuxuu dhibsanayo markaasuu yahay saxaabiga rasuulka ilaahay oo walaalkay waxa aan ku sheegay haduuba yahay ka war bal fiirso warka haduuba yahay ka waran waaba yahayba eg xitaa diintu waxa maraysaa wax qofkaan ku sifaysan yahay hadduu saraali ka ahayn in lagu sheego ha ku sheegi tusaale sawda adigu Soomaaliya taa sawdaata haddaad dhibsanayso in lagu yiraahdo sawda gaabo ama sawda dheeri ama sawda madow ama sawda cadday inaad sheegto ma in lagu sheego ma wax xaraam ninkii markuu rasuulka ilaahay hadduu yahay ka waran hadduu yahay wal xamad hadduu sanayna waa been abuurad marka waxay heli kartaa boqolaal majaal boqolaal albaab furan oo bulshada wax taro leh oo xitaa ajir lagaaga qorayo hadda ku wareegta dacalada deegaanadeen iska daa Soomaaliya dacalada deegaanadeen nabadda hadda ku wareegto afarta qaaradood 5 bilood ka dhamaan maysid waxa khayr oo barwaaqo amniga xoolaha beeraha dalxiiska
nimcada taa halka dad ka dhaqaaqdo inta ilaa iyo boos socoto hadda beel seexato tirada ilaa iyo boos waa ammaan xoolahayga anoo tasaas mid baa kula hadlaysa kunna waa sheegtay ogow waa xaqiiq ajirna baa laga qoray la xaqiiqda soo naqlisay marka asalku waxa weeye dadka ilaahay uga cabso waxaan ku tala gashay oo qorshaha ku darsataa wixii wacanna ilaahay baa ajirkaas siinay wixii khaldanna ilaahay baa kugu ciqaabay nabigu calayhi salaatu wa salaam xadiis wuxuu ku yiri waxaa la weydiiyey ithm dambi muxuu yahay suuya waa waxa naftaadu dhibsato oo aadan jeclayn lagu arko ma xaaka fi nafsik waa dhibsato dadku inay kugu arkaan marka wax kasta oo aad sheegayso ama qorayso ama faafinayso miisaanka naftaada saar adigu haddii lagu oran lahaa hal see noqon lahay waa dhibsan ka daa marka ummadda ilaahay aad uga baqayo ilaahay u dhawaanaya aad baad umahadsantihiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta kulanka kan iyo xafiiskan insha allah waxaan rajaynayaa inaan noqdo dhowr jeer kusoo noqdo ilaahay dankiis السلام عليكم waa mahadsantahay ustaad anaguna kaaga mahad celinayna waqtigaaga waa hagaag daawadayaal toddobaadkan barnaamijka intaas uu nooga yahay ustaad Cabdulqaadir Dheere ayaa toddobaadkan marti noogu ahaa toddobaadkan barnaamijku wuxuu ku saabsanaa wararka xaqiiqada ahayn iyo sida ay u dhaawacaan sumcadda qofka waa mahadsantiin kulantii dambe oo xiiso leh